تو dareemay dislike madaxay ka gashay la dhigasho horta dislike madax xanuun ba ka qaatay insan horta dislike inta iskaga dhigin dib hada u fiirsid channelka waa cusub waxa arkaysaa kumanaan qof oo fariimana soo diray ay leeyihiin nagar halaada waa cusub shalay maanan arkeenin waxaad arkayseen laakiin hadda aanu aragnaa waxaad ka digayseen waan kaga mahadcelinaa ummadda Soomaaliyeed aniga dhowr qof oo ciwaano dad doontaan idinku dirteen ay sheegeen halkan ku kala baxayna imisa ficilka farmaajo iyo farintiisa oo kale aniga oo kaleeta mudana madaxweyne farmaajo hoos ku soo qora inta dhaliishay dhibaatada xambaarsan oo doonaysa burbur iyo dib u dhacna hoos ku soo hadla Yaasinow dimuqraadiyad weey Yaasinow anigu hore waxaan u iri tawradii la sugaayay u tumayna durbaanka ti xal loo marinaayay talaada ina dhaaftay oo turxaantii dhamaatay heese loo tirinaayay way turayaan tushmiyaan aqbalnaa taasir anigu waxaan tusaale weeyaha boono dadkeenana u wanaagsan daryeelkeenana yaqaan daayino wallahi iyo farmaajo nooda marar kale oo badan alo dadku mana matalaan waaya asb qof iyo labo ayagu dantooda ka fiirsaday idinku ma noqon kartaa kuwa anagu runtii waxaan noqonaynaa ahaan doonaa hore aanu ahayn ummadda Soomaaliyeed dad darankooda ku shaqeeya manihin dad dana dad anagu Soomaaliyeed anagu hindi manin darankayagana kuma shaqeysan inta badanna darankiina waa diidan iyo faallada xunad fariin ka dhigaysaan oo madaxweynaha wadaane heestan dama soo wadaashino anagu waa isbahan waxaan u taaganahay iyo waa isku wada larin qaar badan baa diiday shiina ahaan iyo Felis Duwaashidan badbad gelinaysaa labadii naad Yaasino hadalka waxa ku soo gabagabeynaya hadana waa cusub bulshada mar dhow waxa la wadaagi doonaa wacyigelintii aanu wadnay wacyigelintaas waxay ka turjumi doontaa qofka mudan in la doorto oo aan ahayn dadka fashilmay ee maanta ummadda Soomaali horboodaya waxaan ummadda ku gubaabinaynaa kulana balamaynaa isbedel dhab ah doona siina midda ku sheegay hada waayaha cusub tihiin waxa soo duubi doontaan beeni barmaqaabto la dhamaatay meel baa dunida ka joogtaan waa in London wanan only baa la jooga dhanka fanka markay noqoto wuxuu ixtiraama badidii xaalad adag xil adag ayaad shiino soo heestay waayaha cusubna soo heeseen dhibaatooyinka iyo tacaadiyada dalka ka jirana waa soo sheegteen badanana waxa ahayd niman amniga iyo nidaamka iyo dawladnimada Soomaaliyeed muujiya hase ahaatee waagii ugu dambeysay halba ku godan fariidka farmaajo maxaa laga siiyay ya niyorta oga Yaasino sanadkan markaa timida saashan laftigeeda la timid moogta inaad isbedeshay iyo kala wali bal dhowraya oo dareenkaaga maxay iska bedelay iyo dareenkaaga waxa iska bedelay sidoo loo soo tagtaagan laakiin anu waxa isdhaayay Yaasiin sanadkan maadaama wax badan isbedeleen wixii aan ka hadlaynay oo arkay dalka gardaamada iyo dhibaatada iyo godka uu ka dhacayo oo arkayo Yaasiin baa isbedeli doona oo asagoo waxa islaha waxa arki doontaa dhihayo tubti tooba ilaahay dib dhaafinta taageerada nabadeena waa aragtidaade hagardaamadi aan sheegaynay maanta wada arkaysaa dalku doorasho kama dhicin xilli kale guur ku jira qatar badan baa iska jira waa aragtidaade وحقيقة شنو وحقيقة شرطة سنبرنا ذلك دنتيسا هي دنت قف أما نجعله سوى الله بكرة دوم واي قف كهدو وحل مسؤولية الله إجمدي وقبض وايو ولا كتنيس وحلا وبحلا توبتاي وما تكتك شباب لا متعلمين ديجا ملقا محورين ذلك دبات بدن بكشرته أنا حاسلي هاي Soomaaliya waxa u baahan tahay badbaado iyo samatabbixin dhab ah aragtidaada waxaana aaminsanahay halista in muuqato waxa looga badbaadi karaa isbedel dhab ah oo la helo marka Yaasino hadii wali aadan intaas ku muuqan ma qaanteen waxaad arkaysid ma dhameysatay aan kugu darsadaa bakala intaada u darsanin aniga wali aaminsanahay dalkan in laga badbaadiyo nidaamkii faashilka ahaa ee hore u jiray ee hore garowdanka ka yihiin farmaajo khayr labada dalka in laga ilaaliyo waa qaba intii la shaqeysana waa qaba dalka in laga ilaaliyo
inta hadda la shaqaynaysa in dalka laga ilaaliyo waa qabaan maxaa yeelay anigu waxaan aaminsanahay isbedel dhab ah ma aaminsan runtii isbedel ma jiro oo maantay ku ciidamadii kala gadoodsan halkaygu qabo shiino maanta dhab ku dhageysanay video yar baan ku tusay intaan faalaha gelin bal fariinta aad waa adiguna kuwani waa ururka tobnaad guutada 18aad kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor awoodda iyo muuqashada inta leeg iyo qabka fiiri midaan ku sheegay horta waxa ilaahay mahadiisa shiino saaxiib waxa ilaahay mahadiisa farmaajo madaxweynaha Soomaaliya haybahan maanta ada iga xiga aragtida aad ku dhalaysan tahay waa fikrad aaminsan tahay aragtida aan ku taageersanahayna waa fikir aan aaminsanahay ma fahanti marka taas horta wax aan oran karo waa dimuqraadiyad iyo dareen wanaagsan haddaba farmaajo dhaliishiisu inay ku muuqataa waan arkaa bal waxyaabaha wanaagiisa ah oo aadan qarin karin ee qabku u horeeyay iyo qaranimada muuqata iyo ciidanka dhisan iyo dadaalkiisa iyo danaynta bulshadiisa iyo fiiri madaxweyne weeye inta ku lamaanay aagiisa ka shaqeynaysa dulmiga badda haday badan tahay kaligiis muxuu qaban karaa isina horta inta birta baarisna maalin lagu badhisina dadaal beer hadda ay tustay Soomaaliya dawladda ugu horeysa loo dhiso iyo ilaa maanta ciidan baa la soo tababaraa kala fiican ciidamada Uganda loo qaadi jiray Turkiga loo qaadi jiray ciidamada mushaharkooda horta dhamaysto inta aanu arkay ciidamada soo tababaraya sida kuwa kale loo tababaro maalin walba guuta ay maanjidhay meel ka baxaan ma naqaano haddana waxaan maraynaaba in ciidamadii la guutooyinkii la qaaday wadamo kale u dagaalgalaanba sida ummadda wada qirayso waxa soo sida istiri waxba yaan waqti aan ku luminin waxa la wada og yahay ummadda wada arkaysa ma raba inaan ka sii hadlo moogtaa laakiin xaqiiqdu waxay tahay farmaajo iyo nidaamkiisii xilka waxaa loogu dhiibay xujaa la socotay oo ahayd midnimada Soomaaliya dagaalanka shabaab midna ma hayno maanta Soomaaliya waxaa ognahay madaxweynayaal kala ka taliya aragtida oo ayagu heer xataa doorashada ayagu maamulanaya aragtida yasinow madaxweynaha maanta taageersan tahay doorashada xataa talo kuma lahan oo madaxweynayaal kala gacanta ku haysto ka hoos samaysmay adaa ku watay wax ku weydiiyay shalay Turkiga si fiican maamuus lagu soo dhaweeyay Erdogan baa soo dhaweeyay videoga ma daawatay iyo sawiraanta ay si maamuus kale oo madaxweynaha loo soo dhaweeyay wallahi videoga macna ma sameeyo ma aragtay bas macnaha kama hadlana waa qof dalxiis kaga tagay sababtoo dalxiis madaxweynaha Erdogan ugu tagay dabcan macna weyn kuma fadhiyo sababtoo anaga waxa u igmanay Erdogan Turki ma waxa u igmanay Yasino waxa anagu farmaajo u igmanay oo u dhaartay ma aha Turkiga inuu tagay inuu Turkiga waa kan ciidamadii dhisaya oo airborada dhisaya oo dariiqyadii dhisaya wadadaalada ku jiro dhamaysto anagu madaxweynaha waxaan ka sugaynaa waxa ahayd dalkan inuu samata bixiyo sidoo yeelay busii wada umaana dooranin inuu Erdogan u tago ama Turkiga lagu soo dhaweeyo madaxweyne u tagay waliba madaxda kale ah mid danteena wada taas waa arrin isku madaxweyne doorashadii aan tala ku lahayn dalkiisa ka dhacaysay ku hayn karaaba jirinba nin asagiiba ummadiisii aan taladeeda u istaagi karin waxba u qaban karin ishaag aan aaminsanahay waliba dalka inuu hagardaaminayo ama uu deerkiisa dhageyso madaxdii hore iyaga magacyadooda ma sheegi jirin eedooda ma sheegi jirin nidaamka dawladeed iyo waxa danta guudeed ka hadli jirtay farmaajo maxaa isaga u ishaaratay iyo qofta taariikhda way asbadaysid ama waxa waan hayaa way hadlaysid mugaysiga Ethiopia ay baaran jirtay shisheeyaha iyo cadawga la dagaalan jirtay waa kala xadaarisanaa marba dhaliisho sheegi jirnay laakiin dhaliisha madaxda ma sheegi jirin xilligii dawladdu ugu horeysay dawladdii lagu dhisay farmaajo rag ka agdhow baad saysan dawladdii lagu dhisay Bakaathi oo madaxweynaha Garodanka Abdullahi Yusuf wasaar oo Kacal Maxamed Geedi waxaan ku dhignay Ilaahay baa ogaa madaxda meedan caayin daba qoodi baa tahay dhagaxa lagu dilo waxa tireen Ilaahay baa ogaa intaasna waxa naga ahayd waxaan u arkaynay in uu dalka shiino waan Soomaaliyeed baatay fanaan Soomaaliyeed baatay oo dareemay dislike madaxay ka gashay dislike bulshada Soomaaliyeed ay kula dhacday Yaasin horta dislike intaan isan dhaftiga kaaga dhigin dib ma u jaagaraysay janalka waa cusub waxaad arkaysaa kumanaan qof oo fariimana soo diray ay leeyihiin naga raalaada waa cusub shalay maanaan arkaynin waxaad arkayseen laakiin haddaanu aragnaa waxaad ka digayseen waan kaga madcelinayna ummadda Soomaaliyeed aniga dhowr qof oo ciwaano dad doontaan idinku dirteen ay sheegeen halkan ku kala baxayna imisa ficilka farmaajo iyo farintiisa oo kale aniga oo kaleeta
mudana madaxweyne farmaajo hoos ku soo qora inta dhaliishay dhibaatada xambaarsan oo doonaysa burbur iyo dib u dhacna hoos ku soo hadla yaasino dimuqraadiyad weey yaasino saaxiibkay weey kala aragti baan haye yaasino أنا وحن CPP حشوط ماله يا إله العاية أدونا وحن قرية ومدن أكيد ركسن تاي CPP أبادنا تاي صابتها وادد أنك حشونين ومدة الصوماليات ودنا وحشون وحكي كده يسا فرماجو هبلو أنا لك حامسنا إن المدحونا ما كوجا سود عايش وحات المانتان قفك دليش وليه أنا جهرا وحاوري توردي للسجاية أتمين دربانك تحلو مريناي ثلاثة إن الأفتي أو ترحانتي دماتي ينسلو تريناي وتران تريان تشميان قلنا تاتر أنا وروح أن تسألوا إياها بونو ضد كأنه أول إكسندريال كأنه يقال دائما والله يوفرنا جنة ودا مرة كلا توت بدن الله دركو يسوي وحن كرايري كوا تاك لا سارة كتوشارة حقنا كوا دول قدونة وحوي دريال كودي ضد كودا واسعة أدقنا هذا ما ياسين هذا حوالي حوالي حاجة إنها عايزة مركو هرانك هاي اللي شنو هذا التوبر دورت ومدحونا يسكت ياسين أقول ما هي كوا تاك أنصارنا كتوشارة حقنا أنقارن تيجلو حول أن تبعنين تمشي كتيرانا تشميان قلنا والله بيقطع بالله يطلع عنك أنا حقا ما أنت إن أمد الصومالي سيدي روبتون كتاب بنانا يستاهل خير هذا تش يا ربي تش على العادي واحد دوم الجيران تش وكله بعمل هذا دي فرماج راهي باكين نعم وفرش يرد سوق فرح ورمياد أرقد الحيس كذلك إني درجات ما تطلع عرفتها سعودي أرابيا وحوي سفارات دودي سوعلي أفتتين أبا فيارس ما كل عرفتي بقى يا أبانا وحلي إنك كان عقلك بدل هذا الشاطر هذا الشيخ هذا الزعيم حجابه يجرب لي دب أودا دقان وحوي خميس يضو دب قال دي بروح الليل هيس أميزين شكل عودة مدعونا سنقال بأمانية مدعونا رواندا وحوي كان لجوجا فرحت بيتنا وقت كل قاعدنا وكل جوجو زي وناكسن أدي وصل لندن عاد بدو مع الصنطهاي ومدة ذكر وحيابها هور مرة ذا هي اللي تكسن كلا وحكم ذا كود دليل أيام مقدس الجوجا ما أنت ومدحوينها ماشي وسحدي مكان يقولوا الجوجا هل كوي هورتي عبسن جري أنا مرجع حلقة جري أما اللي ديري جري تاسنا وقت الماما هلو تفير عند ما يستو ما أنت أدي قصيدة أو دليل أياد مدحوينها فرماجي هورتي سديكر وأنا فالوين كلو فالي فريمة ياسين وديت ياسين والمذا كاسع nimanka sheegay sida maanta muqdisho jooga ee farmaajo iyo nidaamkiisa ka soo horjeeda runtii xaniyooda kula joogan dimuqraadiyad kulma joogan ciidana waa haystaa xaniyooda billahi talaa dulqaadkiis ayaguba ciidan ba haystaan awood joogan ma ahan inaan la joogi karin marqaataada iga wallahi waa dulqaadkiis yaasiin horta mid kale ku saaxiibo inuu ninka fiican ma jira kaliya waxa ka maqan taqaan tush ya rab ana oranay astaghfirullah daado ana ku leeyahay yaasiin tush jira karnaa هذه عاديش دي سمرك هوري دالك هاي مدحوينها دي انت كيسي wax ka duwan ma hayso runtii wasal fiican waaye anagu way asbahan waxaan u taaganahay waa ay cusub isku wada larin qaar badan baa diiday shiina ahaan iyo falis duwaashidan badbad gelinaysaa labadii naadhe waa la tahay runtii way cusub inta kala farmaajo taageersan badan ma taageersana nin dantiisa ay ka gashay nidaamka faashilka ah asagu doonaya maanta in farmaajo oo sandareera kaga raadsado ama nidaamkiisa ama ayaguba maal gashadeen yiraahdeen saas dhahay ama waa isla dagaalan dulqaadkii farmaajo waa inaanu yeelana dulqaadkii farmaajo ma ahana waa cusub halgankan way ka midaysan yihiin keep going falisna waxa u tahay kooxda laf dhabarka u tahay shiinana hal abuur buu yahay inta kale ta waa cusubna waa nala midaysan yihiin mana qabo qof iyo labo mana matalaan waa cusub qof iyo labo ayagu dantooda ka fiirsaday idinku ma noqon kartaa kuwa anagu runtii waxaan noqonaynaa ahaan doonaa hore aanu ahayn ummadda Soomaaliyeed dad darankooda ku shaqeeya manihin dad dad anagu Soomaalidu anagu hindi man daranka iyagan kuma shaqeysan inta badanna darankiina waa diidan yihiin iyo faallada xunaad fariin ka dhigaysaan madaxweynaha wadaane heestan dama soo wada shiino waxaanu soo wadnaa heeso halganka niga dhamaystiraya waxaan la sugaynaa tooba marna ma jiro
tooba qofka ku waajibta waa adiga sida ummadda Soomaaliyeed ee shalay ay khaldeen nimankaas ee fashilmay ee marna habaabiyeen uga dhigeen in waayaa cusub ay qaranka Soomaaliya dagaalamayaan balse gadaal ka ogaada in waayaa cusub ay ummadda Soomaaliyeed u ifinayeen dhibka maanta taagan halista maanta la wajahayo ee ah in xamar lagu dhex dagaalamo in goboladu ay kala tagaan in dagaal ehliya dib loogu laabtay taasina hadalka waxa ku soo gabagabeynaya haddana waayaa cusub bulshada mar dhow waxaa la wadaagi doonaa wacyigelintii aanu wadnay wacyigelintaas waxay ka turjumi doontaa qofka mudan in la doorto oo aan ahayn dadka fashilmay ee maanta ummadda Soomaali horboodaya waxaan ummadda ku gubaabinaynaa kulana ballamaynaa isbedel dhab ah doona siina midda ku sheegay hadda waayaha cusub tihiin waxa soo duubtaan beeni barmaqaabto ياسينو بني بروباغندا waxa ku shaqeysta waadinka dhageyso la maanta ma ku dhageysanay dulqaadka anagu hadaan nahay taageerayaasha CPP dadka dawladda jecel dadka qarnimada iyo Soomaalida jecel dadka qabka iyo qanka magaranaysa ay qaranka macnaheisa fahansan waxaan idin leenahay waa idin dulqaadanayna staanta qaranka tilmaanteedan u yeelanaynaa waa iska bulshada maxaa u leedahay mucaarad maxaafad hadaad ka timaado ياسينو umada waxaan leeyahay Soomaali waa mid si walba loo kala aragti duwan yahay dan guud ba ka wada dhaxaysa oo u baahan in la wada dhaxayso Soomaali baa iskale hadana Soomaali kan aragtida duwan macnaha kan la diidan yahay iyo kan wax diidanba waxa aaminsan inay dan guud isku haystaan nin walba wax wanaajis leeyahay anaga waxaan aaminsanahay isbedel dhab inuu xal yahay taas anaga qaacidadan ku socono muhiimada gaarka ah wadalka oo midooba iyo danta loo midoobo hawshaada wada umad Soomaaliyeed waxa leeyahay hawsha ha socoto qaranku yuu la leeyahay warsan iyo war khayr